isugu nimid ee mubaarakada ah qiimaha iyo qaayada badan khayr badan Allah ka siiyay shariifka ayaa faahfaahiyay Shariif Xasan Shariif Xukaash ilaahay wuxuu quraankiisa ku leeyahay fi suurati an-nisaa ومن يطع الله إلهي ننكي أضيعه وإلهي أمركيس قاطه نهي سنة كفو هذا وحكر بين كفو هذا الرسول كان أضيعه إلهي الرسول ويسكو عطفيه هنا ويسكو لفاقيه مكة الهران محايا إلهي أذيك صدر صدي ويان رسول كان أضيعه وحي إلهي ولا الصدرين كراعه وحي رسول كريبنا كهرو فأولئك كواسي مع الذين كوي معوضي هانا ينبو إلهي كواسو أنعم الله عليهم إلهي كركوضو ونعمي بالإيمان والإسلام ونعمي وي ومحيهم كواسي من النبيين النبياشية والصديقين الصديقين تيهو كوي الرومين تبضنا سيدنا أبو بكر صحابة اللميد هيد أوكرا والشهداء إن منك شهداء وهدين تسلام كل انتيئة والصالحين صالحين تي وأوينا أوليد إلهي وحولي وحصون أولئك الرفيقا وحلال الصاحب كوا سأونك سنة ذيبا إلهي ليه وحصون أولئك الرفيقا وحلال صاحبه وحلال الجوغو كوا سأونك بطي marka ayadan culimada waxay sheegeen waxa laga qaadanayaa lafdigeedan hadee muxuu ahaay ilaahay uu ku cadeeyay subhanahu wa ta'ala ilaahay ninkii adeeca rasuulkana adeeco ya abaal gudkiisa ilaahay muxuu ka dhigay ilaahay rasuulka ninkii adeeca abaal gudkiisa maxaa laga dhigay ugu weyn dadkaasi wanaagsan nabiyaalka ilaahay ay hogaaminayaan macooda inuu ahaanayo abaalgudka waka janna la siinay aayadan lagu madhin magaceeda janna lagu soo sheegin iyo daaraheedii iyo xuurul ciintii iyo waxaasoo dhan waxa ka weyn in lala joogo macooda la ahaado kuwa ilaahay u nicmeeyay subhanahu wa ta'ala min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhadaa kuwaas macoodan ka dhigaynaa baa ilaahay leeyahay ilaa waxa la iska ogsoon yahay kuwaas meelan janna ahayn meelan janna ahayn ma joogan marka jannada makhluuq waxa weeyaan oo in kuwaasi ay u khidmayso kuwa inay ku raaxaystaan loogu talagalay way jannada daatadeedii daaraheedii saraheedii waxan ambiyada ilaahay iyo shuhadadii iyo siddiqiinta ka fadli badan kuwana ka waaweyn soo martid marka ilaahay shahaadada uu bixinayo yawm al-qiyaama abaalgudka uu ilaahay bixinaya ya waxay noqotay dadkaas la joogooda ayay noqotay way marka walaalayaal saalixiinta la joogidooda iyo jacaylkooda imaciyadooda wax fudud ma ilaahay macooda naga dhigo aamin nabiyullaahi yuusuf markuu ducaysanayay muxuu yiri markii uu hadee ogaaday waqtigiisa inuu dhamaaday rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin abuu ilaahay ana muslima ay oofso jannada ilaahay u gali ma dhihin waxa kala weyn jannada wa alhiqni bis salihin ilaahu saalihiinta iyo haleeshibuur haddii muxuu ahaay taa janno lagu geeyo qof saalix aad weydo taa jannaba kuma aha ya janno kuma aha saalixiinta la socoshadoodii la joogistoodii iyo soo ziyaarashadoodii iyo jannada ka raaxo badan ka weyn soo markayst waa alxaqni bis saalihiin marka walaalayaal dadka saalixiinta ah oo maanta xuseyno iyo mar walba aan xuseyno muxuu ahaay ziyaarooyinkooda aan joogno qiimahaasi qaayahaas ilaahay agtiisa ka ay ka joogaan in sha Allah ta'ala maxabadooda Allah nagu arzuqo aamin kuwii raaco oo dariiqoodii raaca Allah naga dhigo aamin ayagana maxabadooda qaali weey qalbigeena Allah ku abuuro aamin in sha Allah ta'ala annaguna hadee dunuubteena Allah ku dhaafo aamin ziyaradeena maqbuul Allah ka dhigo aamin inta waxa kale oo hal kalimo raacinaya waxa weeye
haddaan nahay dadka muxuu ahaay u nasab sheegta u nisba sheegta ahlu sunna wal jamaaca haddaan nahay dadka hadda la sheegahay darajooyinkaasi ayaga la joogistoodaba ilaahay muxuu ahaay uu nagu sharfayo dadka bilaash kuma gaarin darajadaas dadka iimaan iyo cilmi iyo camal bay ku gaareen darajadaas ya annaga marka waxaana laga rabaa inaan wadadoodii aan marno wey haddaan nahay dad baaba suufi sheeganayo ahlu tasawuf sheeganayo ahlu sunna wal jamaaca sheeganayo haddaan nahay ahlu sunna wal jamaaca maxaa tahay sidaadaba adiga maxaa tahay waa inaan baranaa ya suufi baana had leedahay dadna way kugu caynahayaan suufinimada cay baa lagaaga dhigayaa adin waad ogosheed ku dhigantahay soo ma maxay tahay suufinimada sidaadaba ahlu tasawuf baa tahay tasawufka muxuu yahay ma waxa lagu abtirsadaa sidii aniga inay hebel baan ahay oo abtir kelima ma abtir kelima waa aqeeda iyo cilmi iyo camal weeye iyo mutaabaca raacitaan weeye marka waxaad sheeganayso inaad taqaanaa fiican waxaad sheeganayso inaad taqaano marka taqaanaad cadow ka difaaci kartaa nicmo kastaba xaasidiin bay leedahay rasuulku muxuu yiri kullu dhi ni'matin mahsudun wax kasto nicmo saaxiiba waa la xasdaa inaad cadow ka difaacdaa la rabaa si aad maartay aad u difaacdana waa inaad barataa waa inaad barataa haddaadan baranin marka oo waxaaga aniga hebel baan ahay inay sheekh hebel baan sheegasho kaliya ay kugu noqoto ma difaaci kartid ilaa ma taqaanide kow hogaamiyaha diinta islaamka rasuulullaahi maxamed alayhi salaatu wassalaam هذا محل يلف أولئك نعم الله عليهم من النبيين صلى الله عليه وسلم والنبي محمد محوها محون جعلا محون نعبا محون سمين جري مالين محون سمين جري هبين كيف محون سمين جري إلى برتوي والصديقين الصديقين تا أنا يوم الدين أبو بكر باهو قامين إيه أبو بكر سفداء بلها والشهداء رق شهداء لها ما حد سمين جرين والصالحين أوليد الله محي سمين جرتي يا وين برنا وعن كسو كوبا يا مركب ولا ليال فنجان تصوف كاللي يراهدو فنجان باب الصوفي كاللي يراهدو وركن من أركان الدين الإسلام كركن كمدوي ما هو واحد صوفيال ومالها كسو سميان ومحو هاي سيدا هذا محو هذا كسو هرجيدو أي كدقان يا oo suufiyaal iska hindisteen oo meelaha amaad la farfadhiyaan ma aha diinta islaamka saddex tiir bay leedahay arkaanu iimaanka kama hadlayno hadda arkaanu islaamka kama hadlayo arkaanu diin baan ka hadlayaa saddex tiir bay leedahay tiirkaasi waxa lagu cadeeyay xadiiثu jibriil la dhihi jiray جبريل النبي كوضا شاكستين عليه الصلاة والسلام حديث سيدنا عمر وريه صحيحها واتوم هو هاي نين أن لأقونين نين أنا كمدة وسن أقونين بساس نمان عن كم وقالين يسافر على موين كذا أيان نو يمد بور سيدنا عمر مركز السعودية النبي يقول جلبها صاري جلبها النبي ساعة وتيري ogow ninka nimaan garanayna ma ahu yiri shay magaalada ma ahnik haduu yahay qof ba garan lahaa musaafirna ma aha oo safar hadee waxa lagu yaqaanaa qofka inay siiga ka daal ka muuqdo oo ma artay ya safarna ma aha ninkan safarkii maadima waa nin hadda aad moodayso inuu ma artay intuu soo qabaystay soo saliidaystay soo labastay aad moodi weeyaan samadu ka soo degay xagee siigii ka arkay safar مركا يا محمد بويري محمدو ما الإسلام يويدي النبي الإسلام كيف أشرح هاي أركان الإسلام كي شنتها تقينن بو النبي كجواب عليه الصلاة والسلام شنتي أركان الإسلام بو النبي كجوابه
haddana wamal iimaanu buu yidhi nebigu wuxuu ku jawaabay arkaanul iimaankii ataqiinay ee lixda ahaa ayuu ku jawaabay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxba ku sii dahay maaye wamal ixsaanu buu yidhi haddana maxamedow ixsaan muxuu yahay meeshan u jeeda halkaa weeye ixsaankiibuu nabigeennu yuu ku sharaxay muxuu ku jawaabay ixsaankii an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraaka buu yidhi ixsaan waxaa la yidhaahdaa inaad ilaahay u caabudo sida adigoo fiirinayo arkaya haddaadan arkaynin asaa ku arkaye marka maxalushaahidkii waxaa weeye al-islaamudii oo la weydiiyey ugu horreysay culammada islaamka fanni dhan bay ugu talagaleen oo ku sharxeen fannigaasi fiqhi baa la yidhaahdaa cilmulfiqhi aad maqasheen al-islaamu baa lagu sharxaa ya wa anta ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullahi wa iqaamu salaati zakaa soomayno soomu ramadaan wa xaju beyti soo rubac dhan oo cibaado oo fiqhi ku yaal sooma fannigaasaa lagu sharxaa rubacyadan kale oo beec iyo nikaax iyo jaraaxiy aad maqlaysaan waxaa weeye cibaadadan ka dambeeyaan shantan ay ka dambeeyaan cilmul fiqhi waxaa lagu sharxay oo loo dejiyey arkaanul islaamkaas iimaankiina arkaanul iimaankiina wamal iimaanu markuu yidhi nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharihi min allahi tacala sooma dhin lixda arkaanul iimaan baa la yidhaahdaaye lixdaasina waxaa culimmada ay ugu tala gashay oo u dejisay oo u sharaxday cilmulcaqiida cilmiga cilmulcaqiidada la yidhaahdo ee aad aragteen faraha badan imaamkeenna weyn imaamul ashcari muxuu ahaa iyo imaam maturidi iyo muxuu ahaa ay kutubahaas iyo qiimaha badan ka dejiyeen waxaa weeyaan arkaanul iimaan baa lagu sharxay ilaa caqiida waa iimaan wax la rumeeyo unbay ka hadlaysaa maxaa kuu soo haray marka mal ixsaanu sooma ixsaan fanniga loo dejiyey ma taqaanaan fanniga ixsaan loo dejiyey oo an tacbudallaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka ku sifaysan cilmu tasawuf baa la yidhaahdaa waa cilmiga cilmu suufiga weeye waa kaan hadda mabda'a maantaan meeshan isugu nimid wey ninna wuxuu ku dhahayaa wax jira maaha cilmu tasawuf wax jiraba maaha baabu suufi wax jira maaha dariiqo wax jira maaha waa niman qubuuriye caabudahayo muxuu ahaaye qabriga aad ziyaartayo aad muxuu ahay wardi u bixisaa lagu leeyahy waad caabudaysaa war ilaahay amarkii goormeen caabuday waan soo ziyaartay ziyaarada nebiga amray calayhi salaatu wasalaam wardi baan qur-aan baan u akhrinay waanba muxuu ahaaye kaalmayn hayaaye waan u ducayn hayaaye intana xooloo la bixin hayaaye yah waaba loo ducayn hayaaye ma nin tukanayo qabri u tukanaad arteen xaggee cibaadadan ka timid waa meesha marka diinta layska soo galay waa halkaas waan annaga hadda meesha aan waxaa ku dagaalamahayno oon ku dheganahay waxaa weeye waaba suufinimadii soo ma suufinimadii markaa ruknu wey min arkaan iddiin al-ixsaan wax kale laguma fasirin ixsaan cilmu fiqhi maaha cilmu caqiide maaha cilmi kale maaha waxaa weeye cilmu suufi wey haddii markaa rukni dhan oo tiirka islaam ka mid ah haddii majri lagu yidhaahdo ya ninkaasi diintii dee rugnigeedaa ka maqan ogow asagu hadda wuxuu isleeyahy anaa ahlu tawxiid isleeyahy anaa muslim keliga isleeyahy laakiin rugni dhan baa ka maqan eber dhinac buu ka dunsan yahay annagu qofna islaamnimada kama saarayno laakiin guri saddex tiir lahaayoo tiir ka maqan wey marka tiirka asagaa ku wada dhega gacmaha iyo gowsaha iyo gowsaha iyo ilkaha ku wada qabta marka waa inaadna ogaataan oo dareensanaataan inuu yahay rugnigan baabasuufiga la yidhaahdo inuu yahay ixsaankii fannigii loo dejiyey lagu sharxay inuu yahay ninkii uu ka maqan yahay fannigaas uu ka maqan yahayna waxaa looga baqayaa khaatam xumi suufinimo iyo tasawuf iyo waxaas ninkii ka maqan oo lug baan soo saareen
فقيه اسكا ضرب وحو دون اسكا هذا يا وحاوي يخشى عليه سوء الخاتمة يا لوغا بقايا كتبنا باقورة كتاب كان جوهر المكنون كبلاغات أو كلتا وقرأها كتب كلا فرق بدن باقورة كفير مركا waxaan soo jeedaa waxa weey ku soo gabagabeynaya walaalayaal hadaan nahay ahlus sunna wal jamaa hadaan nahay ahlu tasawuf ahlu suufi hadaan nahay fannigeena wayna baranaa abaadidiisa shuruudiisa nidaamkiisa sidoo ku habooyay waa ina baranaa hadaan dhaakir tahay waa ina barataa hadaad shaamir tahay baro hadaad sheekh tahay baro hadaad wiil tahay baro hadaad dhalinyaro gabar tahay baro hadaad waayeel tahay baro waa meesha kaliya aan maanta ku dagaalamayno way oo godka la isugu soo galay way ya hadii aan aqoonin marka si sahlan baa lagaaga siibi karaa si sahlan baa lagu khaldi karaa si sahlan ayaa lagaaga guuleysan karaa waa la caynaya fanigana la caynaya hadaan marka meel ka yimid meel haysta aadan sheegi karin say ku difaacaysaa dad badan baa saas iimaanka looga qaaday waxaad haysaan wax jiro ma aha intay ku qoran yihiin leeyahay وانا ركن من اركان الدين كمدا ركن تيروي يا اركان الاسلام كي اركان الايمان كي يلس من تصوفك سمرتان هدي انت محو هاي فقه برتو علمك استبرتو هذا تصوف نظام هان او غرنين ادن كو دقمين او شيخ لهين اهل طريقه انا هين تير دن اسلامك كمدا كا مقن يا كا مقن إمام كان وينا إمام مالك وحجري إمام دار الهجرة أنس بن مالك وحجري من تفقه نينك فقه برتا منهاج كيف كرك برتا إرشاد كيف تنبيه كرك برتا ولم يتصوف تصوفنا عن برانين فقد تزندق ما شاء الله وابنين محو هاي اللي بوجيلا بري زنديق ويا معناها زنديق وحال يراهدان نين حق او شيغانيا iyo wuxuu ku dhaqmayaan islahayn way ahlu sunnah sheeganaysa man ku dhaqmaysid way macnaha haysid waxa kale uu yiri waman tasawwafa ninkii tasawuf barta ama baab suufi baan gal yiraahdo ahlu dariiqan hay suufi baan hay yiraahdo walam yatafaqah an fiqh baranin salaadi siday ku asaxaysay iyo waxay burinayay ma yaqaanaba ya faqad tafassaqa kaasi faasiq buu noqday bir maxay waanin cibaadaysanayo hadii salaadi iyo soonkii wixii ay ku asaxayaan aan garanayn soo markays waxa kale uu yiri من تفقه وتصوف نيجي فقه برتا تصوف برتا فقط تحقق كاسا وحيدي دينتي سويبر سمركز ما هو مكان مغارو مركز صاد سكيليسا اهل حقيقه نقوليسا مركا ان شاء الله تعالى halkaasaan ku soo gabagabeynaya waxa weeye mar labaad mar saddexaad aan isku boorinayna hadaan nahay baab suufi وإن برنو واحد هاي سوف النمذو يا وأنا سأوجا إن تهاي ركن من أركان الدين إن تهاي وحن مالها مارت سوفيا شيء يكون رواقان ومال بهاي السنين يلا قاعد يدونا مركز لك ورارعين بإذن الله تعالى علما هلو برتو وعملا هلو برتو إن شاء الله تعالى عدوونها لغا دفاعه إن شاء الله تعالى أهل السنة كره الله كدقو أهل السنة عالم كره الله كدقو إن شاء الله شرفته كره الله كدقو علماء الدين إن شاء الله تعالى عالمين تها أهل التصوف كها علماء إن شاء الله تعالى عزي شرف كرامة له زيادة وليد إلهي يا والدين تدل لزيارنا هنا ضمانته إن شاء الله عزي شرف كرامة له زيادة إلهي إذنك أنقون إن شاء الله تعالى كوي إلهي الدين تقعنته كبد بادي الله نقدو هو الدين تقعنته إلهي كذ اللي الله نقمده تدبى الدين تقعنته إلهي كذ اللي نيا إلهي كوانا نقمده إن شاء الله تعالى آخر زمان بالجوجا
sunnada nabiga iyo tasawufka iyo baab suufiga lagu dadaalo ha lagu dhagnaado wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أحسنتم أحسنتم سقاكم جلالك محبتي سقاكم جلالك محبتي من جابنا يا من جابنا يا رب الفاس وهيل المجد للسلطان
رسول الله
Hallelujah.
Ibrahim
ولا
رضي الله عنه عنده ويان إلهي نوافجي أنت العلماء أهل خير كسوة الكشف فضل يوم قرن يساوي وناقة ماشي كدع إلهي فضل وضع المعنوم وليدا إلهي قول حسن فضل وضع المعنوم